السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي سلامي بيرليدا سوماليات waxaan ka soo salaamayaa beeri Hargeysa. Maanta waxaan ku soo kalahnay beer ku taalo Hargeysa waqooyigeeda saan filayo waqooyiga may ahayd dhanka berbera markii la soo aado kulay dhankeeta ma garanayo berbera laakiin markii la soo aado la leexanaya beertan waxaa ka baxaya hadda qaybta aan ku jirno zaytuun maasha Allah zaytuunka soo gadaasheeda yaalo sidoo qurxan yahay wada aragtaan beertaan oo dhan zaytuun baa ka baxaya mirta intay la egtahay fiiri ya intay la egtahay fiiri waa mir aad u weyn maasha Allah wax yar bay u baahan tahay markaan kor ka fiiriyo xogaa nitrogen-ka ku yar sideeda kala maarta geedaha si waxay u baxayaan maasha Allah oo cajiib oo la yaab leh ay u baxayaan hadda geedkan iga dambeeyo kale sidoo maartay hirka iyo yani greenka u yahay very green u yahay waa la yaabaysaa dhulku waa dhul maasha Allah adoo iska fiican kolley wuxuu u baahan yahay xogaa soil test in lagu sameeyo maartay waxyaaluhu maartay dibsanayo kale nitrogen-ka inuu ku yar yahay baa qaybaya iyo waxyaalaha maartay micronutrients ah ama trace element waxyaalaha la dhaho yani nafaqooyinka yar yarka ah siisa kale dhulka waa maasha Allah yani waxa ka baxayso qaybtaas hore bahashi la dhahayay waa inta sidoo senti ya ka baxayso marka hal isku tashta beertan waqti dheer bay shaqeynaysaa waqti dheer ilaa sina loo sheegay 10 sano waa ku dhawdahay 18 sano shaqeynaysaa inkastoo zaytuunka ay yar yihiin laakiin waxay shaqeynaysaa 10 sano ku dhawaad xagga liin macaantana waa qayb kale qaybta laakiin zaytuunka waaye waxaa isla soconaa maantay engineer Maxamed kolley oo kamid ah aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed oo beeraleyda Soomaaliyeed ku jira kamid ah oo yani laf dhabarta ummadda Soomaaliyeed kamid ah kolley asagana warbixin buu naga siin doonaa insha Allah la yeelan doonaa maantay beertii waatana zaytuun badan baa iminka ka baxaya maasha Allah inkastoo seasonki inay dhamaato filaya ciideeda ma xuma ciidu waa ciid iska fiican ciid buureed ah ciidaha buuraha kale waaye yani dhul yara buuru ku yaala geedaha un baa u baahan xogaa nafaqo yar ma aha sidoo kale maartay waa maasha Allah bay yihiin ilaa halka zaytuun adigu waxaan is dhihi karaa waxa ku yaalo ilaa 80 geed haddaan khaldin 50 80 waa ku dhow yihiin 80 meelahaas guava this is guava we are in a farm near Hargeisa this farm has a lot of guava you can see the variety this is the guava yeah that's the one mirtiisa wataasa waa nooca gudaha ay maartay ka cad nooca sanka ma aha qaar baa mira fiican leh maasha Allah ma xuma mir intaan la eg waa hadii lagu dadaalo waa wax maartay oo xoog la saaro si fiican waraabka loogu waraabiyo waxaan filayaa inay maartay isbedel weyn keenayso insha Allah hal isku tashtay beeraha maartay hala beerto biidnillah kan hadda mira fiican buu sitaa ani iyo engineer Maxamed yaa waxaan soo booqanay beer kamid ah beeraha Hargeysa engineer Maxamed ku soo dhawow waan dhawahay cabdirasaaq mahadsan tahay maanta waxaan joognaa beer uu leeyahay nin la Mahdi oo ku taala Hargeysa barigeeda waa u jeedaan halkan saytuun baa ku beeran beertu runtii imika intan aan aragnay aad bay u fiican tahay laakiin waxyaabo yar baa ka dhiman imika tusaale ahaan
waxaa ka maqan oo dee aa aragtaan digo muddo lama siinin waraabkeedu muu fogeyn digaa ka maqan waxaa ka maqan in geedaha wax yar la yara quseeyo marka aanay midhaha lahayn marka midhaheedu waa aragtaan aad bay waaweyn sidii ay hadin loo sameeyana geedaha wuu kala fogeeyey beero badan oo hargeysa ku yaalla waan arkay geedaha aad bay isugu dhaweeyaan laakiin mahadii aqoon buu meeshan ku beeray way kala fog yihiin geedu waa kala durugsan yihiin sax marka haddii imika digo geedahan la siiyo waraabkana saa imika loogu wado moringana lagu buuxo moringadu waxay qiimo leedahay waa powderkeedan ka hadlayaaye waxay kordhisaa wax soo saarka 20% ilaa 35 meelaha qaarkood marka tamaandhadoo kale yaanyadoo kale 50% baa lagu sheegaa laakiin de waa wax la hadhow dee la hubin doono haddii la dhahdo laakiin kulleyba geedkii nafaqay u tahay sax على صار كوي كردينيسا وحيابان كنت لها waa taa weeye beertu inta nimkan horreeyay imko fiican tahay ما شاء الله ما شاء الله aad fiican meeqa isleeda ala geedka waa la siin karaa seasonki kole season baa loo siiyaa digada imka kan oo kale dee diga badan igama muuqato marka halkii geed ilaa 20 kiilo oo diga waa hal baaldi oo mid kale muddo waxba lama siin marka in loo yara badiyo 20 kiilo 20 kiilo in la siiyo ayaa fiican insha Allah laakiin alxamdulillah